in la bireeyo guryaha loogu daato baa waajibkoodu yahay kuwa maanta ceergaba u aleegabaya masalada nabadu kaga islaxda waxa weeye sida gaalkacyo loo wada degan yahay oo loo wada degado ceergaba loo wada deganaa nabadii ay shalay toole ku baaqeen odayaasha weersangeli kuwa ka tirsan oo baran ka hadlayay odayaashaasi shalay toole nabaday sheegayeen inay ku baaqayeen mahoosaas inay ahayd mise xaqiiqa ay ahayd waxa ku sheegaya isla odayaasha kale ee weersangeli ila dhageyso in la bireeyo guryaha loogu daato baa waajibkoodu yahay kuwa maanta ceergaba u aleegabaya masalada nabadu kaga islaxda waxa weeye sida gaalkacyo loo wada degan yahay oo loo wada degado ceergaba loo wada deganaa wiigan wixii ka dambeeyana dawlad harti waqooyi u dhan yahay ay ka soo magaranaysaa ay dhalanaysaa dawladdaasayna ka go-aysaa nabadda ceergabo iyo colaadda ceergabo qolada dawladda maamulka SNM-na waxaan leeyahay maamulka SNM-ow ama kharaj ku bixiya ama ha ku bixinina ceergabo hal masalo baa nabadi kaga islaaxdaa allaha idin fahamsiiyo masalada nabadu kaga islaxda waxa weeye sida gaalkacyo loo wada degan yahay oo loo wada degado ceergabo loo wada deganaado ceergabo ogolaataan in barka 4 beelood baa lagu degan yahay labada beelood harti dhinacooda inay maamushaan oo calankooda ka taagtaan oo aan lisu dawladeyn oo ka ogolaataan baa ceergabo nabadi kaga islaaxi kartaa sabab kale oo ceergabo nabadi kaga dhalan kartaa ma jirto sheekh saxaaqow haddaan nabadgelyo rabtaan nimanka beelima soo cid soo dirsatay ma jirto beelaha kale oo deegaanka degan ceergabo ugu dhow waa ogtii xabada labadiina dhuumad baa isku sii jeeda waxaanu ka digaynaa nimankaasi waxa ay wadaan oo qoy ka wadaan waxaanu ka digaynaa waxa ay ceergabo ka wadaan waxaanu ka digaynaa madaxwada ay ku keeni doonto dadka wada dega oo shacabka u badan waxaana ka mas'uul noqon doonta jabhada SNM oo ragga u yaalay salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh hadalkaasi waa fikirka saxda ay aaminsan yihiin ee ah inaan ceergabo lagu tagaynin wax la yiraahdo nabadna ay kaga dhalanayso sida iyagu aaminsan oo afkiisaba uu ninkaas ka sheegayo in halkaas ceergabo laga taago laba calan oo ay noqoto kaalkacyo oo kale war waxa ku leeyahay hadaba ninow nafta malaha ku dhibaysay walaal kaalay waad soo daahdeen degdeg waliba ceergabo u kaalaya waxa aad ka faa'iidaan waxba hanaga siinina ceergabo haday hooyada leedahay uu leeyahay adeero gacay kabaha afka kuma soo qaadateen oo halcad kama soo qaxdeen oo maatidaada kalamaad soo dhex baxdeen ceergabo hadaad leedahay sidaad u sheeganaysaa leedahay waan leeyahay wallahi inaad ka soo baxdeen ceergabo waa guri reesha qisaad 991 kina waxa lagu ogolaaday inaad calanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad ogolaato oo aad ku hoos noolaato kina waa diiday waxaana sababay 2025 aad ka soo dareerto isla magaaladaas ceergabo waxay ahayd inaad calan kale oo dameero ku sawirayeen aad meeshaas istiri ka taag tiina way ku hirgeli weeyday maantana kuma hirgelayso ceergabo maanta sida ay nabad doo tahay ay weligeed buu haaraysaa nabadana gaarkeeda waxa ka inaya waxa ku nool reesha qisaxaaqa ee leh oo wiyaashood ay ku aasiyihiin adeer ceergabo iyo gobolka Sanaag guud ahaantiba meelaha aanu ka kaftano ma ahan ceergabona la ascaarooda kale ma ahane ha ku soo lugin waayahay maxaa isku soo beegay in maanta ay noocadani ay u hadlaan iyo sidoo kale in dhahar ay hooyooyinkani ay ku eedeeyaan isla Puntland inay xasuuqday oo ciidan BMPF ah ay ku soo deysay sidoo kalena calankii Puntland halkaasi lagu gubay waxa weeye Puntland ciidan bay noo soo dirtay DNF ciidamadii loogu talagalay cadawgay noo soo dirtay shacab masaakiin oo magaalada ku nool aanu nahay waana la xansuuqay guriyada la ka dumiyay waxaanu ku galabsanay ilaa iyo hadda garan mayno waxna la jooga oo loo yimi ma jirto dawladda Puntland baa nagu soo duushay waa barakacnay waa guurnay waxaasoo tacaddi ay noo geysatay waxaanu ka codsanaynaa inay ciidamadooda nagala qabtaan dawladda Puntland guryahayaga waa dindabeen dawladda Puntland waxa weeye dibta ay nagu hayso dib aanay iyadu samayn waddanka gabadha halka ay ku qabo isdiidooyinka maanta hareerahooda ka jira iyo waxay ku heshiiyeen shalay toole munaafaqadii hore waxay Soomaalidu tiri labadii xaqdaro ku heshiisa xaqa ayaa isku dira maanta shalay toole xaqdaradii ay ku heshiinayeen iyo isaaq baa lagu soo duulayo laascaalood nagu haystay iyo isaaq baa naxasuuqaya waa wagaraya daaroodaya hartiyaaydi ay shalbadaha ay ruuxalayeen ayaa maanta guryahoodii ka dhex dilaacday
maantana waa sidii ay shalay toole shalmada u ruuxanayeen bay rabaan inay u ruuxdaan odayaashaasi waxay colaada ay ugu baaqayaan waa sidii ay nafis dhexdooda uga dhexdhici lahaa iyo sidii iyagu dhexdooda isdiidooyinka ay isku hayaan iyo siyaasadda ay isku hayaan iyo munaafaqnimadii iyagu shalay toole ay beerayeen oy maanta ay midhaheedii ay cunayaan sidii ay uga nafisi lahaayeen ayaa maanta ceerigaabo loo rabaa in loo soo weeraro halkani waxaa kaaga muuqdaa waxaa ciidan ah waa lagu wadaa dhanka iyo jiidahaasi ceerigaabo sidii halkaasina rabshado looga kicin lahaa dagaalna lagu qaadi lahaa ayaa 100% ay raggani ay garadsiiyeen midda kaliyaatee maanta waxa allaale waxa isku hayaan ay kaga nafisayaanna waxa ay garadsiiyeen inay tahay inay duulaan ballaaran ay ku soo qaadaan ceerigaabo waa maxay haddaba sababta maanta jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheedii xukuumadda taladeeda hayay uu nabado kaliyaata ugu dhagan yahay iyadoo 100% waxa halka jooga aysan nabad diyaar u ahayn oo 100% ay aaminsan yihiin waxa la yiraahdo ceerigaabo inay leeyihiin ceerigaabana aysan nabad ku noqonaynin ilaa ma yahay ay calaamad ka tooda ay dhinacooda ay ka taagtaan xukuumad waxa joogta maanta dalkiina haysata wax walbaaba oo socda nabad haddii nuclear xataa laynagu soo tuurayo oo laynoo diyaarsanayo nabad baanu rabnaa nabadda nuclearka naga qabo ayuu odhan doonaa baan malaynayaa xukuumadda maanta talada dalka haysa caqli xumadooda 100% maanta raggaasi waa u diyaar inay ceerigaabo ay duulaan ku soo qaadaan ani waxa odhan lahaa bulshada reer Somaliland gaar ahaan reer Sheekh Saxaaq gaar ahaan walibana Habar Yunis oo tadegta bariga Somaliland yaa bar jeclaba colaad joog mar walba u ahaada waxay idinku hareeraysan isku kiisoo urursanaya waxay saameynayaan waa idinka waa shacab ahaan ciidanka jamhuuriyadda Somaliland 100% waxa leeyahay wax la yiraahdo amar oo ka sugeysaan talis ku yaala Hargeysa iyo talisyo ku yaala Somaliland galbeedkeeda iyaysan jirin sida horaba uu u sheegay barasaabka gobolka Sanaag magaaladaasi ceerigaabo maayirkeeda iyo cid kasto ammaanka magaalada ceerigaabo qaabilsanba waxay sheegeen inaysan mar dambe waxay ka sugayaan taliska Somaliland galbeedkeeda uusan jiri doonin waxaan rajeynayaa in midaasi laga dhabeeyo si aan meeshaasi laydinku hoosaasin nabadan ka soo socon nabad meesha kama soo socotay nabad hoosaasina ay odayaashii shalay toole ku baaqayeen nabadda ee lahaa waanu aqbalnay nabaddu Cabdiraxmaan Ciro noogu baaqay oo nabad baan doonaynaa dahayina adeero gaclay wata kuwii la dhashay leeyahay guryahooda ayaa lagu gowracaya waana mudayihiin guryahooda lagu gowraco oo kuwaas aad maqlayseen ka dhawaajinay marka meeshani nabad kama soo socotee adeero gacliya nabadna waxay timaadaa marka si toosa loo kala baxo ee maaragtay ninka wax isku tabaaya uu ogsoonaado wuxuu yahay marka raggani huwantay soo urursanaya 100% maantana raba maamul inay halkaasi ka sameystaan ee maamulkaasina uu hirgeli laayahay ee isdiidooyinka far badan ay isku huwayeen sababta malaayiin kala fikir duwan ayaa meesha isku haysta oo geyslaba odayaal ah beerarkay howlaha xataa waa laga meeshiba laga saaray ergooyinka ay qabanayeen 300 qof ay halkaasi ay ku ururinayeen inaan lagu darin iyo odayaal kale oo iyaguna harti kale oo aan deginba meeshaba oo la iyaguna sidoo kale annagana laguma darin marka huwanta lagu sheegaya magaca huwan been maaha waa waxaas wada huwan ee iyagii kala bixi karila marka dadka noocadaas waxa kaliya ay caqliyadood siisay ceerigaabo dagaal ay baduulaan ay ku qaadan ay ku midoobiska ay mid ku noqon karayaan marka 100% haday ku midoobayaan iyo hadaysan ku midoobinba mar walba loo diyaar ahaado sidii duulaankaasi xooggan ee ceerigaabo ku soo foodale haday tahay ka dawlad ahaan iyo haday tahay ka ciidan ahaan iyo haday tahay ka shacab ahaanba loo diyaar garoobo ayaan anigu leeyahay. Wassalaamu calaykum.